بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كلمات wuxuu ku saabsan yahay cudur la dhaho Clazion ayaan uga hadli doonaa oo nabar isha ku dhaca iyo wuxuu yahay iyo calaamadaha lagu garto iyo qeexitaan ahaan cudurkan waxa uu yahay iyo treatmentigiisa iyo waxyaalaha sababa ayaan uga hadli doonaa hadduu ilaa yiraahdo cashir yar oo kooban. ugu horreyn qeexid waa maxay horta Clazion? Clazion waa nabar ka soo baxa baarka isha eyelid. baarka isha dushiisa nabar ka soo baxa ayaa la yiraahdaa Clazion. hadda sida sawirka in kaga muuqato oo ujeedaan qofka nabarka ishiisa ku taal waxa uu ka soo bixi karaa baarka kore upper eyelid iyo baarka hooseba lower eyelid. macnaha kuma koobna oo kaliya baarka sare kaliya kuma koobna. sawirku waa kana nabarkaas mataqaana ayaa la yiraahdaa Clazion oo ka soo baxa baarka isha. cudurkan sidoo kale Soomaalidu waxay u taqaanaa abututu. haddaad adigana magac kale u taqaano fadlan kommentiyada noogu soo sheega hadduu ilaa yiraahdo. laakiin se ilaa hadda intaan ogahay waxa loo yaqaanaa abututu. badanaa cudurkan waxa uu ku dhacaa qanjiro glands loo yaqaano myobamin iyo qanjiro la yiraahdo zis. badanaa buugtu waxa ay qoraan inuu myobamin glandigu yahay kan kaliya uu ku dhacdo, laakiin sidoo kale buug kale iyo dad kale waxay qabaan in sidoo kalena marmar qanjirada ziska ay keeni karaan mataqaana inuu dhaco Clazion. laakiin badanaa waxa la dhahaa waxaas koos gareeya myobamin glandiga. haddaba waa maxay myobamin glandigan? myobamin glandigu waa qanjiro ku yaala baarka isha dhexdooda. waa qanjiro yar yar oo ku yaalo baarka isha dhexdiisa eyelidka dhexdooda ayay ku yaalaan. ilinta tiriska ilinta caadiga ah tiriska la yiraahdo waxa ay ka kooban tahay saddex lakab 3 layers oo la kala yiraahdo lipid layer, aqueous layer iyo mucus layer. haddaba myobamin glandigu waxa uu soo saaraa oo ay shaqadiisu tahay inuu soo saaro lakabka ugu sareeya ee la yiraahdo lipid layer. waa kana sawir waa kana waa myobamin glandigan tan waa ilintii saddexda lakab lipid layerka waxa soo saara myobamin glandiga, aqueous layerka waxa soo saara lacrimal gland, mucus layer oo ugu hooseeyna waxa soo saara cells la yiraahdo goblet cells oo ku yaalo oo ku dhex jiro conjunctiva dhexdiisa. haddaba myobamin glandigu waa qanjiradaas ku jiro baarka isha dhexdooda soona saaro lakabka ugu sareeya ilinta ee loo yaqaano lipid layer. haddaba marka Clazionku soo ku dhaca Clazionku marka waxa uu dhacaa marka uu xirmo furmada openingiska ee qanjirka myobamin glandiga. qanjirka myobamin glandiga openingiskiisa meena meelihii furmiye ay ka soo baxayeen ilintii lakabkii ilinta ay uu suubiye marka ay xirmaan ayaa waxa dhaco Clazion. waa kana sawirka mataqaana myobamin glandiga qanjirkii waa kana eyelidka dhexdiisa waxaan gaduudan waa qanjirka myobamin glandiga. haddaba ilintaas uu soo deynayo meena meesha ay ka soo bixaysa lipid layerka lakabka marka uu xirmo ayaa waxa dhacayo myobamin gland. sawir kale waa kana gaduudkan waa myobamin gland soo ma jeed myobamin gland. haddaba gaduudkaas marka uu xirmo ayaa waxa dhacayo Clazion. haddaba marka calaamadaha lagu garto maxaa waa number 1 waa inuu nabar jiro. nabar ku yaalo eyelidka oo ishaada caadiga ku arkayba uma baahna xitaa microscope iyo slit lamp in ay isticmaasho indhaha caadiga ay ku arkayso inuu nabar jiro. nabarkaas Clazionka badanaa ma laha xanuun, waa painless. waa sababtan waxay tahay waxaa jiro nabar kale oo la yiraahdo stye iyo Clazion waxa kaliya lagu kala saaro ayaa waxay tahay mataqaana inuu staygu leeyahay xanuun meesha Clazionku uusan lahayn wax xanuun. sidoo kale marka la gadiyo baarkana waxa arkaysaa midab gaduud casaan ama bulug mari barbar color inuu leeyahay. waa kana sida sawirkan soo socdo markii la gadiyo oo conjunctivaha hoose waxa arkaysaa inuu leeyahay red color ama bulug mari barbar color inuu leeyahay. calaamada lagu garto waa nabar aan xanuun lahayn painless intiisa badan. sababtoo xitaa hadduu xanuun leeyahay waa nabar xanuun la aragto waa cudur kale oo la yiraahdo stye. laakiin hadduu painless yahay waa Clazion.
marka la gediyo baarka ishiisa hoosan waxa ka arkaysaa inuu leeyahay casaan ama bulug maari purple color marmar marka waxa dhacda inuu ka soo baxo wax ka badan laba classroom multiple classrooms marka adigu uun mar fiirinaysa inuu hal nabar kaliya yahay laakiin marmar waxa dhacayso inuu yahay multiple classroom aba laba nabar hadda waa maxay waxyaabaha sababi kara classroomka waxaa ka mid ah baarkiisha oo aan si fiican loo nadiifin lack of lid hygiene blepharitis waa inflammation ku dhaco eyelid margin ama mataqaana baarka isha marginkiisa inflammation ku dhaco marka wuxuu cause gareyn karaa asagana inuu dhaco classroom sidoo kale secondary to sty cudurkii hadda aan tusaayay nabarka xanuunka badan ahaa marmar wuxuu cause gareeyaa asagana inuu classroom dhaco waa kana sty nabarka waa nabar xanuun badan asagana dermatitis inflammation of mataqaana the skin eyelidka skinkiisa iyo korkiisa iyo haddii qofka uu ku dhaco maqaarkiisa mataqaana inflammation iyo mataqaana wax ka jiraan asagana wuxuu cause gareyn karaa classroom inuu dhaco badanaa dadka tuberculosis ka qabo TB-da ayagana waxaa lagu xiriiriyey inuu classroomku ku dhaco sidoo kale viral infectionka ayagana waxay sababaan inuu classroom dhaco haddaba sidee lagu daweyn karaa daweynta classroomka saddex qaybood qayb ka mid ah cudurkan classroom kaligiis ayaa daweysma saddex qaybood qayb kaligiis ayaa daweysma classroomka one third marka self resolution isku suubina kaligiisa mataqaana dhamaanay nabar ahaan nabarka dushiisa oo la qanciyo hot compress 3 ilaa 4 jeer maalintii qofka marka hadduu isku arko classroom 3 ilaa 4 jeer maalintii inuu hot compress wax qandaca oo ku qabto mataqaana nabarka dushiisa waxay keentaa inuu nabarku self resolution suubiyo oo uu si tartiib u dhamaado intaas waxa ku dheer goojooyin antibiotics iyo kaniiniyaal anti inflammatory oo la isticmaalo mataqaana oo la siiyo qofka si mataqaana uu nabarkaas uu mataqaana uu daweysmo hadda waxa soo baxay nooc cusub oo ah steroid oo lagu duraayo nabarka dushiisa ama agagaarkiisa steroid injection in or around the lesion macnaha ama dushiisa ama agagaarkiisa lagu duraa 0.2 ilaa 2 milliliter oo triamcinolone acetonide ayaa lagu duraa nabarka dushiisa marka waxaa la ogaaday oo la sheegay in 80% inuu nabarku ku bogsoodo cirbada koowaad fast injection marka lagu daro 80% kamida classroomka uu bogsoodaa haddii se 2 isbuuc gudahood uu ku fiicnaan waayo waxa lagu celiyaa cirbad labaad oo isla ayadii aad ayaana loo sheegay inuu mataqaana ay uga fiican tahay qaliinada iyo waxyaalo badan last option waa qaliin in classroomka surgery lagu suubiyo aad iyo aad ayaa u mahadsantiin